Xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya ayaa si weyn u soo dhaweeyay magacaabista Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee loo magacaabay Maxamed Cabdulqaadir Cali iyo sidoo kale Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Dhallinyarada oo loo magacaabay Xildhibaanad Maama Daawo Suusow oo ka mid ahayd bahda isboortiga ee dalkeena Soomaaliya ee gabdhaha Legends-ka ahaa. Daawo Suusow ayaa waxa ay qayb weyn ka qaadatay dib u dhiska iyo habeynta isboortiga iyo horumarinta isboortiga dalkeena Soomaaliya iyadoona ay ku bixisay dadaallo badan iyo sidoo kale isboortiga horumarka uu maanta gaarsiisan yahay ee qayb weyn kaga qaadatay. Soo dhaweyntan ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay xiriirka ciyaaraha fudud ee dalkeena Soomaaliya ee hogaamiso Maama Khadiija Aadan Daahir oo ugu hambalyeystay magacaabista loo sameeyay wasiiradan cusub ay la wareegi doonaan shaqada wasaaradda dhowaan oo ay looga fadhiyo inay dardargeliyaan howlaha wasaaradda ee muddada kooban ee u harsan. Sidoo kale waxaa soo dhaweyn ballaaran u sameeyay magacaabista wasiirada xiriirada kala duwan ee dalkeena Soomaaliya iyagoona ugu hambalyeeyay magacaabista loo magacaabay Maxamed Cabdulqaadir Cali Wasiirka Dhallinyarada Ciyaaraha iyo sidoo kale Xildhibaanad Daawo Suusow oo iyadana qayb ka ahayd isboortiga dalka kaasoo ay kaga mahadinayaan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya isbeddelka ay sameeyeen iyo isku shaandhaynta wasiirada uu maanta sameeyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse oo magacaabay isbeddeladan uu ku sameeyay dhowr wasaaradood oo kala duwan. Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa dardargelin doonta howlaha guud iyo sidoo kale horumarinta isboortiga dalka iyagoona qaybo ka mid ay horey u soo qabteen wasaaradda ciyaaraha uu hogaaminayay Maxamed Bare Maxamuud oo isna doorkii weynaa uu ku qaatay ugu mahadceliyeen dhammaan bahda isboortiga ee dalka. Shaqo wanaagsan ayuu ka qabtay qaybaha kala duwan ee wasaaradda intuu joogay waxaana ay leeyihiin waad mahadsantahay mudane wasiir. Dhammaan xiriirada dalka Soomaaliya ayaa isna ugu mahadceliyay doorkii weynaa uu ku lahaa Wasiirka Ciyaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Bare Maxamuud.